kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe share gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo axad ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog dadka ugu cadcad ee loo magacaabi rabo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa hordhac loo helayaa isla markaasina madaxweyne Farmaajo ayaa doonaya qabiilada waaweyn ee kasoo horjeeda ee hawiye inuu u magacaabo shakhsi isku keeni kara isla markaasina aad u taageersan hase ahaatee lama oga in uu shax kale ciyaari doono madaxweyne Farmaajo warar loo kalsoon yahay ayaa sheegaya in siyaasiyiinta kala Cali Maxamed Geedi iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo kasoo kala jeeda beesha Habargidir iyo Abgaal ayaa la filayaa in midkood laga dhigo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya isla markaasina muddo yar u harsan tahay taasi oo noqon doonta mid kashif aad u weyn ahi haddii uu madaxweyne Farmaajo uu helo muddo kordhinne ay u ahaan doonto mid ay sii shaqayso hase ahaatee 6 bil oo qura kuma soo dhisi karo maamul aad u wanaagsan calansida media ayaa ogaatay in Cali Maxamed Geedi uu dalbaday 3 baabuur oo ciidan ahi si ay amnigiisa u sugaan maadaama loo ballan qaaday in laga dhigayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya sidoo kale warar kale oo soo gaaray calansida media ayaa sheegaya in agaasimaha sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasin uu la rabo in ra'iisul wasaare loo magacaabo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ah madaxweynihii hore ee Galmudug isla markaasina inta badan naqdiya dawladda federaalka Soomaaliya laakiin aad mucaarad ugu ahayn isla markaasina boqolkiiba 60 waxyaabaha ay soo qoraan ka falceliya lama oga madaxweyne Farmaajo labadan mas'uul midkood ka dhiganayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya hase ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa macquul ay tahay inuu tallaabo kale u qaado oo siyaasad kale ciyaaro maadaama qabiilo kale ay jiraan isla markaasina uu ku qancinayo dhinaca kale si hayaha xilka ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo magacaabistii ugu horeysay sameeyay si hayaha ra'iisul wasaaraha dalka ahna ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa xalay sameeyay magacaabistii ugu horeysay saacado kadib markii uu si kumeel gaar ah loogu magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimo xafiiskiina uu ku fadhiistay Mahdi Guuleed ayaa bedelay xoghayaha joogtada ahaa ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isagoo magacaabay xoghaye cusub kaasina uu raacay wadadii ra'iisul wasaare Khayre wareegta ka soo baxday xafiiska kusimaha ra'iisul wasaaraha ayaa Cabdirasaaq Xuseen Aadan si kumeel gaar ah loogu magacaabay xoghayaha cusub ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa shalay galab kusimaha ra'iisul wasaaraha loogu magacaabay Mahdi Maxamed Guuleed oo horey u ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka maadaama Mahdi Guuleed oo saaxiib dhow la ahaa madaxweyne Farmaajo magacaabista Mahdi Guuleed waxay ka dambeysay kadib markii kulankii xildhibaanada golaha shacabka ee shalay lagu shaaciyay in kalsoonidii lagala noqday xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre isla markaasina 8 daqiiqo oo qura ahi xilka loogu qaaday waa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay taariikhda oo 8 daqiiqo oo qura loogu qaaday xilka isla markaasina ahaa ra'iisul wasaarihii in muddo ah la soo shaqeeyay madaxweynihiisa dhinaca kale gudoomiye mursal oo meel aanan ahayn xarunta golaha shacabka uga dhawaaqay natiijadii shalay ka dhacday xog ay heshay calansida media ayaa xaqiijinaysa in shalay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan natiijada kalsoonida kala noqoshada xukuumadda uu uga dhawaaqay meel ka baxsan fadhiga baarlamaanka isla markaasina luuq la galay 8 xildhibaan oo aad u diidanaa kalsooni kala noqoshada xukuumadda Khayre ayaa ku buuqay gudoomiye Mursal wuxuuna ka istaagay kursigii oo gudoomiyaha ku ahaa kulanka isagoo galay xafiiskiisa halkaasi oo loogu geeyay wariyaasha si uu ugu dhawaaqo natiijada rasmiga ahayd codeyn ma dhicin gudoomiye xafiiskiisa ayuu galay markii la isku buuqay kadibna cod ayaa laga soo duubay isagoo ku dhawaaqaya kalsooni kala noqoshada waana xaraam ayuu yiri xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo Muqdisho warbaahinta kula hadlayay muuqaalka laga soo duubay gudoomiyaha ee ku dhawaaqista natiijada ayaa muujinaya inuu fadhiyo meel xafiis ah oo aan ahayn fadhigii baarlamaanka Soomaaliya buuq iyo sawaxan ayaa hareeyay kulankii shalay waxaana la sheegay inuu ahaa mid aan loo marin wado sharci ah iyadoo ay jiraan doodo waaweyn oo arrintaasi ku saabsan isla markaasina aan la ogeyn ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre wuxuu ka yeeli doono maadaama taageero aad u xooggan oo ku leeyahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya war degdeg ah oo inaga soo gaaray xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo gabi ahaanba aqbalay wixii maanta dhacay isla markaasina sheegay waxa uu yiri anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro loona marin ayuu yiri habraaci saxda ahaa ee xilka qaadista xukuumadeedii in xitaa aanay ajandaha ku jirin in aanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka haddana waxaan go'aansaday ayuu yiri inaan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo oo dhowraya ayuu yiri midnimada dalka iyo inaan dib loogu laabanin burburkii iyo dhibaatadii si aan ugu
turno ayuu yidhi shacabka soomaaliyeed qaybna uga noqon ayuu yidhi qalqal iyo dib u dhac siyaasadeed mid dhaqaale amni iyo bulshaba ayuu yidhi si kastaba haatee ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ku nunuuxsaday oo adeegsaday erayadani ah anigoo og wixii maanta ka dhacay golaha shacabka ay ahaayeen sharci darro anigoo og in ajandaha uu ku jirin mooshinka anigoo og ayuu ka bixi waayay si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa gebi ahaanba aqbalay islamarkaasina sheegay in dalka loo duro islamarkaasina xukuumadda filla soomaaliya ay marnaba ku darsanin muddo kordhin asigoona sheegay in madaxweyne farmaajo amaba sarbeebay farmaajo ama xilka qaadistiisii sabab ay u tahay inay farmaajoii asiga ee ku aragti duwanaadeen doorashada wakhtigeeda ku dhacdo islamarkaasina muddo kordhin aysan marnaba samaynin filla soomaaliya ugu dambeyntii khayre ayaa hadalkiisa laga dareemayay in ay madaxweyne farmaajo khilaaf xoogan oo kala dhexeeya kuna saabsan doorashada islamarkaasina sheegay haddii wakhti lagu darsado dowladda federaalk soomaaliya wakhti ku darsata ay dalka burbur oo ku imaan karo islamarkaasina laga shaqeeyo sida ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ay usii taagnaato ra-iisul wasaare xasan cali khayre waa ku deegay asigoo xanaaqsan islamarkaasina aan faraxsanayn xisbiga madasha qaran oo war ka soo saaray sida ay u aragto xilka qaadista ra-iisul wasaare khayre islamarkaasina gebi ahaanba kasoo horjeeday kana soo horjeeday qaabkii loo maareeyey xilka qaadistii madasha xisbiyada qaran ayaa maanta war ka soo saaray tallaabadii uu baarlamaanka kalsoonida kala noqday xukuumadda khayre iyada uu si rasmi ah u ayiday madaxweyne farmaajo aqbalay islamarkaasina si deg deg ah aqbalkiisii filla soomaaliya lagu baahiyey madasha xisbiga qaran ayaa si weyn u cambaaraysay xilka qaadistii lagu sameeyey khayre iyo xukuumaddiisa taasi oo ay sheegtay inay carqaladaynayso go'aanadii shirka dhuusamareeb islamarkaasina loogu dan leeyahay muddo kororsi aan sharci ahayn islamarkaasina qorshaha guracan ee madaxweyne farmaajo uu doonaya ay tahay in shirkaasi uu burburo warmurtiyeedkaasi ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa waxaa kale oo lagu sheegay inay madashu ka xun tahay in xilligaani uu madaxweynaha uu hormuud ka noqdo qalalaase siyaasadeed oo xaalad adag geli kara dalka iyo dadka ummadda soomaaliyeed madasha xisbiyada qaran ayaa sidoo kale ku baaqay in xilligaani kala guurka ahi ay muhiim tahay ilaalinta saraynta sharciga iyo xasiloonida dalka iyada oo ay ka go'an tahay madasha xisbiyada qaran waxayna si adag uga digtay hanaan kasta oo la isku dayo muddo kororsi aan sharci ahayn maadaama xilka qaadista khayre ay horseed u tahay hirgelinta qorshaha filla soomaaliya ay doonaysa in mar kasta ay wakhtiga kororsato ugu dambeyntii waxay soo jeedinaysaa xisbiga madasha qaran in la ilaaliyo isfahamka siyaasadda ee bilowga ah iyadoo oo laga fogaanayo wax kasta oo keeni kara qalalaase siyaasadeed oo uu dalka galo si kastaba ha ahaatee mucaaradka iyo qaybo kala duwan ee bulshada iyo dadka siyaasiyiinta ayaa u arka xilka qaadista ra-iisul wasaare khayre inay tahay mid filla soomaaliya ay ku doonayso in muddo kordhin ay ku heshay islamarkaasina shirka dhuusamareeb gebi ahaanba oo burburo dhinaca kale 4 qodob oo uu mursal u cugsaday xilka qaadistii ra-iisul wasaare khayre islamarkaasina shaaciyey maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ayaa maanta si lama filaan ahi u shaaciyey in kalsoonidii lagala noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre sida ay ogaatay calansida media gudoomiye mursal iyo xildhibaanada golaha ayaa 4 qodob u cuskaday xilka qaadista ay maanta ku sameeyeen xasan cali khayre iyo xukuumaddiisa gudoomiyaha iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha ayaa ku doodaya in xukuumaddu hogaamiyo ra-iisul wasaare khayre ay gebi ahaanba ku fashilantay amniga iyo arrimaha federaalka oo maalmihii u dambeeyay laga gaaray heshiis isfaham ahay sidoo kale xukuumadda khayre ayaa lagu haystaa inay gebi ahaanba ku fashilantay hanaanka doorashada ee 2020 iyo weliba dhamaystirka dastuurka dalka oo weli qabyo ahi 4taasi qodob waa kuwa ay guddoonka iyo xildhibaanadu ku eedeeyeen xukuumaddii khayre islamarkaasina ay daaqada uga saareen walow la rumaysan yahay in arrintaasi salka ay ku hayso khilaafka ka dhexeeya madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre iyo farmaajo ayaa isku fahmi waayey nooca doorasho ee dalka ka qabsoomaysa marka la gaaro xilliga ay dalka ka qabsoomi lahayd halka uu farmaajo wato qorshe kaasi ka duwan oo muddo kororsi ahi xilka qaadista baarlamaanka iyo ayidda aqbalida madaxweyne farmaajo ayaa u muuqata mid bilow u ahi qorshihii filla soomaaliya ee muddo kororsiga taasi oo hore loogu digay islamarkaasina iminkaba xisbiga madasha qaran ee ugu horeeya xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed ay digniin culus ka soo saareen islamarkaasina haddii ay cadaato filla soomaaliya inay wakhti ku darsato dalku waxa uu galayaa qalalaase siyaasadeed iyo amniga oo faraha ka baxa dhinaca kale mursal oo dalab degdeg ah u diray madaxweyne farmaajo kadib xilka qaadistii ra-iisul wasaare xasan cali khayre gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa markii uu maanta soo xiray kulankii baarlamaanka ayaa madaxweyne farmaajo ka dalbaday inuu degdeg usoo magacaabo ra-iisul wasaare cusub
gudoomiye mursal ayaa ku doodayay in xukuumadda khayre uu ku fashilantay qabshashada doorashada 2020 isla markaasina uu goluhu kala laabtay kalsoonidii uu hore u siiyey xukuumadda khayre waxa uuna sheegay in 170 xildhibaan ay xilka ka qaadeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo gabi ahaanba xukuumaddiisa arrintaasi oo lama filaan ku noqotay adduunka iyo xildhibaanada intiisa kale mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa raba in farmaajo uu si degdeg ah usoo magacaabo ra-iisul wasaare cusub oo muddo kooban kusoo dhisa xukuumad cusub oo dardar gelisa howlaha qaranka waa sida uu hadalka u dhigay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa wareegto madaxweyne ugu igmaday mudane mahdi maxamed guuleed qadar oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk Soomaaliya sii socodsiinta iyo maaraynta howlaha golaha xukuumadda si ku meel gaar ahi xilka xayuubinta uu maanta shaaciyay mursal ayaa noqotay mid lama filaan ahi taasi oo la rumaysan yahay inay gadaal ka riixayso filla Soomaaliya oo khayre u aragta caqabad hortaagan muddo kororsiga iyo in doorasho dalka oo sida ay rabaan filla Soomaaliya u dhigto si kastaba ha ahaatee wasiirka amniga ayaa maanta baarlamaanka ka sheegay in xukuumadda la riday loo dan leeyahay maadaama ay kasoo horjeesatay filla Soomaaliya oo rumays ama aaminsan amaba aad u doonayso inay waqti kororsato hase ahaatee waxa uu yiri ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo annagaba waxaan noola ridayaa waxaan kasoo horjeednaa doorashada oo madaxweyne farmaajo uu doonayo waxaan garab la nahay ama aan taageersanahay maamul goboleedyada dalka isla markaasina xilliga doorashada oo waqti yar ka dhiman doorasho dadban mooyaane si kale kuma dhici karto